waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal iyo dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan iyo si walbo ay noo maqashaanba kusoo dhowaada website-ka www astalking wabis com oo aad ka barateen inay idiin soo gudbiyaan casho aad u xiiso badan. waxaa kaloo daawade inaga soo xiriiri kartaan ama la socon kartaan casriyadeena janaalka aan youtube-ka ku leenahay ee www astalking.com. waxaa kaloo facebook aad noola soo xiriiri kartaan daawade xarunta barashada android-ka. haddaba daawade cashirkan free tutorialka maanta waxaan ku qaban doonaa amaan kusoo qaadan doonaa sidee baad u bedeli kartaa applicationka magaca ama sawirka. cashirkan aad ayuu u xiiso badan yahay, waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan. haddaba daawade cashirkan tutorialka ahi waxaa idiin soo jeedina aniga oo ah Cabiid Daahir. haddaba aan daawade u gudubna cashirka. barnaamijkan shaashada idinka muuqda ee layidhahdo quick shortcut maker waa barnaamijka maanta ka falaqeyn doono, kaasoo aan ku bedeli doono applicationada magacyada ama sawirka saaran. haddaba daawade waa barnaamij aad u khatar ah oo markaas aad la yaabi doontaan si u shaqeynayo. haddaba daawade si aad barnaamijka usoo rogataan waa inaad play store-ka soo furataan. haddaba daawade play store-ka midaad saan usoo furato waxaa saaj u direysaa daawade quick shortcut maker. sidaas ayaad qoreysaa daawade quick shortcut maker. okay, then ku dhufo daawade. markaa ku dhufato waa kaasa barnaamijka ugu horeeya, then ku dhufo soo install garey. intaa kadib markaa isla fahnay intaas waxaan usoo gudbaynaa markaa barnaamijkii. haddaba daawade for example waxaan doonaynaa maanta barnaamijkan la yiraahdo share it. waa ujeedaa barnaamijkan calaamada guduuda ay ku wareegsan tahay. ayaan doonaynaa maanta barnaamijkani in aan ka bedelno magaca iyo sawirka. hadda waxaa ujeedaa inuu magaciisa yahay share it oo qof walba way taqaanaa, sawirkana u saaranna waa ujeedaan. haddaba si aan u bedelno waxaan gelaynaa barnaamijkii la oran jiray quick shortcut maker. barnaamijkii daawada sidan usoo furmayaa, then waxaad taabanaysaa applications, then waxaad qoreysaa quick si uu barnaamijka noo soo baxo. waa kaasaa waa barnaamijka ugu horeeya quick shortcut maker. waa maya daawada igaraal noqda. barnaamijka ayaa raadinaynaa share it barnaamijka ayaa raadinaynaa daawade. waa kana daawade share it waa barnaamijka. waa kaasaa daawade calaamada guud ay ku wareegsan tahay, waa calaamad guduuda barnaamijka ay ku wareegsan tahay. ku dhufo. markaad ku dhufato markaad doonaysa inaad magaca ka bedesho daawade waxaad taabataa meeshaas ee falaarta ka muuqato, taawo share it ay ku qoran tahay. then ku dhufo. waa ujeedaa in rename shortcut uu ku leeyahay ku amrayo. then shortcut ayaan ka tiraynaa, waxaan ku qoraynaa for example Cabiid. then markaa Cabiid ku qorto okay dheh, waxaad doonayso ayaad ku qoreysaa halkan. so for example kaliya weeyaan. then okay dheh. markaad doonaysa inaad sawir ka bedesho waa iyadana iconka inaad ka bedesho. markaad rabto waxaad taabanaysaa meeshaas tap to change icon ah, then ku dhufo. so markaad doonayso image ama temis color ama markaad doonaysa halkaas ayaa kala soo baxaysaa. laakiin waxaan doonaynaa maanta inaan sawir saarno sidaan hore idinku soo sheegay. waxaan ku dhufanaynaa marka daawada images, then sidaan usoo baxaya waxaan ku dhufanaynaa sawirka meesha kala soo baxayno. waxaan gallery ayaan rabnaa inaan kala soo baxno. just ons dheh hal markii inaan kala soo baxayaan rabaa. for example waxaan rabaa inaan saaro sawirkan. for example waxaan doonayaa inaan sawirkan saaro, sawirkan oo kale ayaan doonayaa inaan saaro. then ku dhufo. wuxuu ku leeyahay sawirka aad ayuu u dhirbayaa, so marka waa inaad sameysaa crop. so ani waxaan leeyahay marka waxay u crop gareysaa laba option ay ku siiyey crop oo ah barnaamijkaas iyo barnaamijkan. ana waxaan doonayaa inuu barnaamijkan igu habeeyo galleryga. so just ons leh hal mar kaliya. so inta qaybta ka raba aan saaraya gabacdi dhan ayaan leeyahay.
soo ujeeda inuu saaray sawirkii dan halkaas ay ku reference create soo hada barnaamijku inuu create gareeyay soo waa inaan raadsanaa markaa waa kana daawade waa kana barnaamijkii soo waa galay aan ka baxbal waa kana daawade barnaamijkii hadda barnaamijkii share it halkaas ay ku qornaa hadda cabay ayaan u bixinay sawirkiina waa ka bedelnay soo hadda aan galno cabay midkaan ku qornayo hadda aasaasnay sida tan ay usoo baxaya waa barnaamijkii share it haddaan ku rifo barnaamijkii share it horena waa isla sidii daawad wax sama dhaama laakiin waxaan bedelnay oo kaliya cabay oo ah magacay ayaan bedelnay iyo waxaan bedelnay oo kaliya sawirkii waa barnaamij aad u qtara sa u jeedaan wax uu sameeynaya ma aan wax yar daawad cashirkan aad ka u qiimaha badan waxa in soo diray anigoo ah Cabdi Daahir waxa idin ka codsanayaa inaad page-kan like noo dhahdaan aad video noo share gareysaan hadaad Facebook tiin da YouTube tiin daawad waxa idin ka codsanayaa inaad channelkeena marwalba subscribe taabaan hadaad website-keena joogtaan waa kaasa ee ku baashala hadaba daawad waxa idin leeyahay anigoo ah Cabdi Daahir salaamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.